kusoo dhawow qaraaxa tiyub fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa Roma ka dulqaaday saxiixa ciyaaryahanka Boqdo xidig la yiraahdo Malcolm kaasoo 41 milyan oo lacagta Euro ah Barcelona ay ku gabagabaysay. Ciyaaryahankan oo shalay kooxdiisa heshiis la gashay Roma oo xidigan 36 milyan ay ku gabagabeeyeen ayaa hadda Barcelona lacagtaas lacag kale ku dartay iyadoo 5 milyan ay ku dartay Barcelona Roma ay kaga dulqaaday. Xidigan ayaa galabta la filayaa inuu u soo duulo Spain si uu maro tijaabada caafimaadka ee kooxda Barcelona. kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa wada hadallo la furi doonta Manchester United oo ku aadan ciyaaryahan Harry Maguire oo kamid ah ciyaartooyda difaaca dambe ka ciyaara horyaalka Ingiriiska kuwooda ugu wanaagsan. Sidoo kale waxaa la sameeyay koobka adduunka ee 2018. Liverpool ayaa iibin doonta xidiga lagu magacaabo Divock Origi haddii dalab 27 milyan gaaraya ciyaaryahankan ay ka hesho. Liverpool ayaa warinaysa in xidigaas kooxda rabta laga iibin doono. Juventus ayaa iibin doonta Miralem Pjanic haddii ay helaan Paul Pogba kaasoo kamid ah ciyaaryahan hore oo soo maray kooxdan. sidoo kale Liverpool ayaa kooxda ka fasixi doonta 8 ciyaaryahan oo ku jira Divock Origi, Loris Karius, Dani Ings, Marco Gorgische, Ojo, Lazar Marco, Zeman, Miole iyo xidiga da'da yar ee lagu magacaabo Pedro. Waxaa sidaas weerisay shabakada la yiraahdo Liverpool Echo. Jack Butland ayaa ku biiray liiska goolhayaasha bedeli doona Divock Courtois haddii Chelsea iska iibiso goolhayaha lagu magacaabo Courtois. Sidoo kale Kasper Schmeichel iyo Jordan Pickford ayaa kamid ah liiska kooxaha ay Chelsea doonayso. Waad ku mahadsantahay daawashada videogan. fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad daado subscribe. mahadsanid.